wiilo Soomaali ila socotay maalinka Jimcadii sabtideedii kasii horeysay ahayd Jimcadii aan wada soconay baa hergab la qofay marka waxaan isla hergabkoodii baa kugu dhacay gurigaan iska joogay marka shirkadu waan u sheegay fasax baan galay shala baa waxa la ii sheegay wiil Soomaali aan garanayo magaalada degan inuu sidaas oo kale dareemo isbitaalka tagay kabacdina laga soo helay sideed ku ogaatay in aad qabto xanuunkan coronavirus-ka isbitaalkii waan xala maqribkii tagay dacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadda iskaadana kusoo wacay dhaheen cudurka markay ka baarayaan waqti buu qaadanaya 24 saac jaabta in lagu siiyo marka dacaan yar bahal yar bay suuf ku dhibiyaan dhunta iska gelinaysaa waad ku celinaysaa anaa kusoo wacay wala number bay iga qorteen hadda dhow bay soo waceen haddii ay kusoo waceen maxay kuu sheegeen marka waxay ku dhaheen positive baa tahay labadu waa inaa gurigaaga joogtaa kaga bixi karta guriga sidaan ognahay xanuunkan caalamka oo dhan ayaa la daalaa marka inta aadan dhakhtarka tagin ka hor maxaad dareentay calaamadihiis wax nooga sheeg niyo xanuunka intaan usan igu dhicin aniga waxaan arkay maalinkii sabtida baan shaqaynayay waxaan isku arkay riiraxyo dhunta cunayso kabacdi waxaan cabayay muddo ah finjibiil iyo shaah baan iska cabayay hergab baan aaminay waxaan dareemay wareer dhigaha xanuunaya labada dhafoor oo aad iyo xanuunayo tabardaro qufac laakiin inkastoo marka aan sanjibiisha iyo maaragtay waxyaabaha kulkulul iyo isbaaskii cuno ah ka roonaanayo laakiin inta badan waxaan dareemayaa qandha aan jirkay ka baxayn tabardaro aniga dhan wareer baa igu jiray markasta marka waxaan dareemay waxa inaysan hergab ka weeyeen because of weligay hergab 4 bari ka badan lama xanuunsan waan dareem wax aan caadi inay yihiin sidaas darteed baana shaki igu jiray muddo 3 bilo u dambeysay waxbaa si khaldan caafimaadkayga marka sidaasaana keentay inaan aado dhakhtarka soo baaro dadka caalamka ee uu saameeyay cudurkan waxa ay sheegeen in uu dadku naqasku ku dhago deetana ay miir daboolmaan adigu maxaad ka dareentay adigu ma isku aragta calaamadaas iyo walaa wax neefa iyo wax taariikh saaid oo aan kala joogtay anuu mahay alxamdulillaah rabbil caalamiin qof bas uu ku helaa laakiin aniga hadda sida waqtiga aan ku sheegay maanta maalin ka fiican ma jirto qandama dareemo waxa ma dareemayo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin dhakhtarku wuxuu igu dhahay 2 week baad karantiin ahaanaysaa 2 week marka waxaan ku dhahay already guriga waan joogan waxa igu tiri waxba dhimay 2 week oo gurigaaga si joog iska naso waxa weeye biyo badan cab waxa weeye nasiinadana bani dhakhtarku ugu dhahay waxaa suuragal ah in aad leedahay qoys ama asxaab kula nool marka ayaga dadkaas caafimaadkooda ka waran bal niyahow aniga keligay baa degan laakiin dhalinyaro waxaa jirtay aan talaadadii aan kulanay waa u sheegay wada soo baaran ku laakiin iyagu waxay ku dhan waa fiicannahay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay niyow Soomaali badan oo magaalada joogto especially 5 iyo 6 gaarayso aan wada xiriirnay maalmaha xanuunsan aan la wada xiriiray kulli inta aan wada dareemaya qof raba inuu isbaaro ma jirto marka waxaan dhihi lahaa wareed hal soo baaro qofku horta ogaado waxaan hayo ilaahay baa caafimaad hayo alxamdulillaah rabbil caalamiin qofku inuu ku qanco wax kasto ku dhaco muslim baana annaga waxaan ku fiicannahay wuxuu waa iska hergab laakiin waxaa daran qof waa yeel ama qof kale oo xanuunsan cudurrada maaragtay dilaaga qabo inaad ku darto oo nasiibo halkaas gacmaha ugu geysato marka waxaa daran inaad wixii adiga inta inkirto aad gurigaaga dhex xurido dad badan baan aqaanaa 1 iyo 2 iyo 3 midna ah oo magaalada ila jooga dhalinyaro Soomaali ah oo isna qaano kulligood wada qandan oo qufacayo oo ku dhahayo calaamadahaas laga helay adiga aad dareemaysid anagana waa dareemayna ku hay aan rabin isbitaalka inay aadaan marka waxaan oran lahaa dadku qofku markuu xanuunsado gurigiisa joogo hadduu aad isaga shakiyo oo qufac saa'ida iyo qandho iyo tabardarro iyo waxa dareemo fadlan maalinka saddexaad ama labaad adoo cidna la kulmin isolate iska dhigo keligaa guriga ku xirnaa dhakhtarka u tag isa soo baar ka sokow 14 bari ee lagu qoray karantiin ahaan inaad gurigaaga joogtid ma jiraa wax daawooyin ah oo lagu qoray wax kale lagu qabanay ma waxay ku leeyihiin lacala hadii neef aad dareento neefta inay ku dhibto ambulance tawac dhakhtartii baarti baa soo wacday difaaca jirkaaga aad buu u shaqeynayaa waan ka dareemayay bay dhahday laakiin 2 guriga iska joog bay ugu tiri waa wiil Soomaaliyeed oo uu ku dhacay cudurka coronavirus-ka ama COVID-19 fadlan haddii aad calaamadahan iska dareemtay la xiriir goobaha caafimaadka kuugu dhow si aad u hesho talo caafimaad oo isu baarto halkani waa Sooranyaro official fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar